waa gabdhaha caanka ah TikTok waxaana lagu magacaabaa Mrs Wall iyo Fartuun Balbalaarka waxay si arxan daro ah u garaacayaan Catoosh Yare oo ah wiil caan ka ah baraha bulshada waxaana la xaqiijiyay in gabdhahani ay Catoosh Yare ku soo weerareen xafiiska Durdur Media halkaas oo ay durbadil ugu geysteen Catoosh Yare waxaana Catoosh Yare oo dhaawac culus ah la dhigay mid ka mid ah qolalka Durdur Media xafiiska u ah halkaas oo looga qariyay gabdhihii dilay rabayna inay nafta dhaafiyaan Catoosh Yare waa kuwan muuqaalo naxdin leh oo laga soo duubay ila daawo dhilada qabtidna xamar asla joogna ceelo shacbiga ku ordin asayna wir niraga duya banaanka soo baxo ofiska lagu soo xiray luuq fulay hooyada iyo jabka maroodi ku dhashoos waa nus mitir wara fulay qalka ku xirtay wax tumona saay waa fulay Catoosh waa xabsaday dhacdadan ayaa ah mid naadir ah waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo la arko gabdho Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah kuwaasi oo doonanaya wiilal iyagoo weeraraya dilna u geysanaya dilkan arxan darada ah ee loo geystay Catoosh Yare waa falkii ugu horeeyay ee nilankaasi ay gabdho Soomaaliyeed u geystaan hadaba daawade sida u aragtaa in gabdho Soomaaliyeed ay wiilal Soomaaliyeed oo caan ka ah baraha bulshada ku weeraraan xafiiskooda ayagoo halkaasi dil ugu geysanaya kuna dul mashxaradaya